maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko oo helinayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose magaalada Hargeysa ayaa kormeeray qaar ka mid ah guryihii ay roobabkii shalay waxyeelada u geysteen waxaanu sidoo kale maayarka caasimadda Hargeysa kormeer ku tagay cisbitaalka dhimirka ee Raywan ku yaala degmada Axmed Dhagax oo ka mid ah goobaha roobabkii shalay ka day magaalada Hargeysa ay waxyeelada u geysteen ugu horeyn halkaas waxa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii soo kormeeray cisbitaalkan iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta cisbitaalka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان ينجونا وحويا دكتورك عافيماتك دمرك ريوان مقعس الريوان بالي الأعضاء تبرعات بالقول سيء وحقاضي صدارك إنسان بالضبيشي بك قاضي تنقدي سيدا دركي درادد تشيكين كيو سميني ما يركع عاصمت يو حقبت كي ما يركع يعني كسر ويني هل كان واحد تميد أن kormeerkii duqa caasimadda iyo xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta degmada kuwaasoo soo gaaray markii warbixin nalaga siiyay in dhakhtar isbitaalka Raywan ee dadka dhimirka loogu dhisayo tabaruca iyo contributionka taasoo ay dhibaatadu ay muuqato aragtaan waxaan maanta soo kormeernay si aan u eegno bal waxyeeladu qabo isbitaalka dhimirka oo hogaaminayo duqa caasimadda isagoo u kuurgelaya bal waxyeeladii dhammaan caasimadda soo gaadhay oo ka mid tahay tanna ugu dambeyntii halkaas waxa ka hadlay duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko oo sheegay in tan ay qayb ka mid tahay kormeer ay ku sameynayaan sidii ay u kuurgeli lahaayeen xaaladaha guriga shalay roobabku ay dhibaato u geysteen waxaanu bulshada qaybadeeda kala duwan ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan sidii loo caawin lahaa dhamaystirka cisbitaalkan dhimirka Raywan ee loogu talagalay dadka dhimirka wax ka qaba oo roobabku guud ahaanba ay u geysteen dhibaato weyn waxaanu yidhi iyadoo ku meegna dhibaatadii uu roobku keenay iyo aqaladii uu jiingada ka qaaday waxaan halkan ku soo booqanay isbitaalka Raywan oo ah isbitaal ay lagu xareynayo muxuu ahaa mujaahidiintii dhimirka wax ka qabay iyadoo ay hawsha ka shaqeynayeen wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cali muxuu mujaahid Cabdiraxmaan Cabdisalaam Turki iyo mujaahidiin kale badan ay ka shaqeynayeen dawladda hoosena dhulka ugu tabarucday iyadoo intan horena lagu dhisay tabarucaad waxaan leenahay dadweynaha waa ka san dhibaatada ka dhacday iyadoo guddiga gacanta ku haysa la soo xiriirayo waxaan leenahay dadweynaha gacanaha laga geysto oo dhismaha in dib loo dhiso si agabkii kale iyo wixii kale loogu dayactiro ee hawshu u socotay waxaan si naxariis leh uga codsanayaa dadweynaha ka soo qayb qaataan waxaan degmada Axmed Dhagax maanta isbitaalkan iyo 8 aqal buu ka qaaday jiingada roobkii waxaan leeyahay dadkana Ilaahay cod khayr qabaadi siiyo hadii jeerna waxaan leeyahay dadka aynu ka ilaalino inaynu biyo mareenada xidhno taasoo sababaysa inay dhibaato badan inagu timaado Cabdulqaadir Cudi Home Cable TV Hargeysa.